يكسيا يملذ دلكينا يكسيا يملذ دلكينا هيا كتبتي سهيستا تركيدوكا افتمي هودا أدوكا نصغي مرها هوبا تهوتي إلا عقيركا كبوري هوري إلا عقيركا كبوري يكسيا يملذ دلكينا يكسيا يملذ دلكينا هيا كتبتي سهيستا تركيدوكا افتمي هودا أدوكا نصغي مرها هوبا تهوتي إلا عقيركا كبوري هوري إلا عقيركا كبوري جدانتا هردا وحديو جدانتا أميق نول الآيتين يبدا بلارم هدان هنتيور فيتو عنكي قرنكا موضي هردا وحديو جدانتا هردا وحديو جدانتا أميق نول الآيتين يبدا بلارم هدان هنتيور فيتو عنكي قرنكا موضي عنك تلكين وقاتي هيا ضمير كجوغا ورموت كاساب سمانتا وكانوا ميريس موشا عطينو هلي مواتن عطن حنونو دركينا انتي ذا وينو كدوغي عطينو حرات كريبنو عطن انسا حقراتا عطن كوهر منيولكا عطن gudoomiyaashii hore nooma imaan jirin wax gudoomiya oo noo yimi oo aan adiga aan ma jiro oo magaalada u dhashay xoog fadhi u dhaafi jiray runbaan ku sheegaya waxaad noqonaysaa gudoomiyaha dadka la shaqayn lahaa ee madaxweynaha u tartami lahaa weliba aan ku siin lahayn codka waxa weeyaan ilaa kibli waa ku daawanay nin odayaa tahay oo waxtar oo wax qabad leh magaaladani way u baahatay in wax qabad leh oo macnaha dadka soo dhaweeya oo la xashaashaqa oo aan dhaafin waan u baahanay gudoomiye biyo qaraar baa loo shubaa ciyaalkaasi waxay u baahan yihiin wixii laga caawin karo WFP baa waxay bixisaa xogaa raashina way keentay hadda awal ma siin jirin waa mid cusub wuxuu u baahan yahay raashinkaasi inay u helaan iyo macaan inay u helaan waxaan u baahanahay markaa idinka codsanayaa horta marka u horeysa ciyaalka in ay helaan biyo macaan waa emergency waxaan ka baqay biyo qaraar marka loogu daro raashinkan loo keenay inay xanuun ka qaadaan
inaad sii martaanna waabaad suuragal waaba wacnaan lahayd waa loo karinayaa xoogaa yaroo biyo macaanoo hore aanu haysanay dayntiina dhammaade waannu soo qaadno aanu iibinayno aanu jeebkayga ka gurayno dee macallin yar wax yar qaato oo tuulo jooga waxa ardayga fiiga yar ka qaada buu misana adeegiisa ka iibinaya haddii albaabaa jaban oo annagana laga raba inaanu samayno alaaya kulli xaal waxaan u baahanay horta ciyaalkaas biyo macaan oo emergency in la helo oo waqti uma baahana raashinkoodaasi haddii kale xanuun inay ka qaadaan isdiriya wax ka qaadaan baa halis u yihiin macallimiinta laftarkeeda xoogaa dee macallimiin gunna ma jirto iskuulka dhan aad aragteen hadda laba macallin baa ka gunaysan qanuun yar baan isu taagan oo nabadgelyada ku saabsan maadaama aan taliyii qaybta gobolka soo lahay horta waxaan ka codsanaynaa bulshada dhammaanteed inaad nabadgelyada nagala shaqaysaan ciidan booliis ahaan haddii aad booliiskiidii ku horreeya aad aragteen hadday tahay iyo haddii kaleba mar kastaba inaynu nabadgelyada ka wada shaqayno haddii ilaaha yidhaahdo oo ciidanka booliiska aad nabadgelyada gacan ka siisaan waxaan kaloo ku darayaa dadka deegaanka xaalifintiisa iyo dibindaabyadiisa ka shaqaynaya oo waxyaabahaanu halkan ma marayna ay ka mid tahay waxaan uga digaynaan waannu maraynaa hadday tahay caasimaddii gobolka sool ee laascaanood iyo hadday tahay degmadii kalabaydh ee deegaankan hoos tegayey iyo hadday tahay guddoomiyihii gobolkaba waad dareemi karaysaan hawsha lixaad kale aannu u soconno waxna waa u soconnay waxna waa noo raaceen haddeer marka hore waxaan u soconnay xaaladda abaara iyo in deegaankayaga dhibaatada abaarada ka jirta aannu xogogaalu noqonno annagoo dee awal baan qurbajoog ahayna ka warhaynay saacad walba kolley aniga maayir ahaan xildhibaanadan laga soo doortay deegaankan ribood bay ii keenayeen ah maxaad haayadihii uga haysaa deegaankii biyola'aan baa ka jirta xaggaynu wax ka doonnaa maxaynu ka haynaa dawladdii marka horta dee warkiinna waannu hayn laakiinse war indhaadhaamaa la yidhi waxaa saaka noo raacday dee inanu indhahayga wax ku aragno taasi waa qodobka abaara waxaa kaloo noo raacday laba masalo mid waxaa weeye dadka deegaankan intii aanu haddeer soo maraynay hadday tahay afgooye iyo qabri bayaax iyo karin aan haddeer joognaba sida ay ugu diyaar yihiin inay wax qabsadaan waa wax naga dhinnayd aan saaka aragnay waxaa kaloo noo raacday dee magaalada intaa lega layidhi male caafimaad waxbarashadii dee waxaa ka dhinaaden laakiinse wayba jirtaa iyaduna waa dhibaato jirta ilaahay waxaynu horta ka baryaynaa isaga gacan weyne in wax allaale wixii dhibayna haysta hadday tahay abaaraha iyo hadday tahay wixii kale aynu u baahannahayba in ilaahay inoo sakhiro abaartan inaga soo jebiyo intaa haddaannu ka gudubno dee soomaalila socday taliyihii qaybta maayirkii laascaanood guddoomiyihii kalabaydh xildhibaanadii deegaanka ka soo jeeday cuqaashii iyo odayaal fara badan oo kale waxaan leeyahay ukuurgalku waa laba nooc mid waa kii abaaraha midna waa kormeerkii degmooyinka marka had iyo jeer wadhasaabadu gobollada yimaadaan waxaa muhiima inuu qofku mas-uul hadduu yahay uu dhammaan degmooyinkii gobolka hoos imanayay la tago oo indhaha uu ku soo arko marka aanad waxaa layidhi wixii indha arkaan baa ilka gooyaan dhibaatada taalla waxa weyaan dadkeennu haddii aad tidhaahdo hebel baa igu yidhi oo halkaa iiga soo warramay ama lagu yidhaahdo halkaa lama tegi karo oo laguu bahalageliyo la yidhaahdo waa meel fog ama colaad baa ka jirta ama halkan baa ciidan go'an yahay ha tegid waxa weeyaan ummaddii xaqaa'iqa ka jira ummaddan ku nool ee gobolka ku nool ma ogaan karaysid muhiimaddu waxay tahay in la ogaado dadkan shacabkii waxay ku nool yihiin aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa si aad noogu soo dhowayseen ee quruxda badan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaa ka hadasheen dhowr arrimood oo kala duwan biyaha kowka oo daruuriyo qofku mama noolaanaya haddaan biyo jiro dee gobolku waa gobol weyn dhammaanna waa wada saamaysay abaartu marka biyo la keeno anu waxaan qabaa 10 booyadood haddaa hesheen qaar baa 2 booyadood hore qaarna booyad bay heleen dee ummadda lama wada ilaahunbaa wuxuuda gaadhsiin karaya gobolka dhan marka biyo loo qaybiyo dee intaa ka hesheen anigu waxaan ogahay inay tahay intii ugu badnayd wixii dambee yimaadana waa idiin imanayaan saa ugu dhaqsaa badan leh ta biyaha iskuulka waa ku qasbannahay biyaha iskuulka carruurta in ay biyo macaani soo gaadhaan insha allah sida ugu dhaqsaa badan leh
ta iskuulka dayactirkiisa waxaa leh wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha degmada ee waxbarashadu waxay tahay inuu u soo gudbiyo isuduwaha gobolka isuduwaha gobolku hadduu gudbin waayo xaq baad u leedahay inaad soo ashkatayso aad ii timaado laakiin marka hore waa inaanad isuduwaha soo dhaafin aad isuduwaha u soo gudbisaa haddii aad isuduwii ka cabanaysa inaannu isagu keenin taasi waa dhibaato waxa weeyaan caqligal noqon mayso ummaddanuu mas-uul ka yahay inaannu soo gudbin taana waynu eegi doonnaayo dee cabashada halkan kamaad jeediseen waxaan odhan lahaa dhuxusha deegaankay ku xidhantay odayaasha haddii imminka ciidan ku soo baxo oo gaadiidka aa sheegaysaan halkaa wada maraya la xidhxidho haddana odayaalunbaa ka daba imanaya iyo cuqaashii oo koofiyada sito odhanaya ha la soo daayo hal la xidha ma jirto anigu waxaan odhan lahaa idinku marka hore nin walba magaciisa iyo gaadhigu wato soo gudbiya taliyii qaybta waa kan uu imminka u sheegailaahay baa mahadli laakiin waxaan mahadinayaa barasaabkii intii laascano hadda barasaabadu joogeen kulle intooda badan cabdiqani maxamuud jiiro oo deegaankan ka soo jeeday oo halkan ku dhashay mooyaane runtii barasaabadu aan maanta nooga imaan jirin hore nooga imaan jirin waa ilaahay mahadi mar haddii barasaabadu maanta marayaan waxaad xaq u leedihiin dadku iyo maayirada iyo wixii ay maraya ilaa gurihii deegaanku waxaad xaq u leedihiin dadkanu waa dadkii idin doortay meel kasta oo 3 qof oo Soomaaliland bari ku nool inaad tagtaan ilaahay baa wax bixiya laakiin dadka booqashadu inay wada gaadho waa wixii la idin doortay xaq baad u wada leedahay inta ka bacdi anagu qurley baan joognaa qurley abaartu waa sida odayaasha horaan la qabaa way ku 3 jirsatay waad aragtaan waa cidhifka xagga koonfureed xiga hadday ku 3 jirsatayna dadkanu maanta hadda iminka riigu biyo wuu leeyahay oo biyihiisa maanta dee waad aragteen waa la cabayay laakiin hal qof oo wax ka qaadan karaa ma jiro maxaa keenay shilinkii lagu qaadi lahaa dadka booyadaha shacabka u qaada booyada dawladda biyaha kama qaado halkan xoolo dhaqatida way hoganaysaa waxay u hoganaysaa riigaasay kulaalaysaa haddana hal qof oo qaadan karaa ma jiro dadka xoolaha ka hadlaynaa deegaanka aanu joognaa waa qorili waxaa qorili ka mid ah maanta joognaa dhulka dee waa laga warhayaa waad noogu timaadeen sidaad noogu timaadeen khayra noogu yimaado sidaan aad u tegi doontaana shara nooga tago waxaanu ka hadlaynaa sida ay tahay raggaa ka hadli doona dee waxay la tahay inaad garanaysaan arlada sida maanta adduunku yahay marka waxaanu ka hadlaynaa dee oo raggu ka hadli doonaa laakiin anigu aan bilaabaya in dhulku abaaro iyo dee maaragtay jiraan dhibaato dee uun maaragtay iska fududoo waqtiabnaa oo dad islaama oo helaa marka labaad ilaahay waxaanu ka baryaynaa abaartaa jirta ilaahay isaga gacan weyn inuu ilaahay inaga soo jabiyo inuu ilaahay noo soo naxariisto dee annagu waxaanu nahay madaxdii gobolka iyo degmada waxaa halkan maraya gudoomiyihii gobolka iyo anigoo maayirkii degmada Laascaanood iyo gudoomiyihii degmada Kalabaydh iyo xildhibaanadii deegaankan ee idinku aad codkiina ku doorateen iyo taliye qaybta biliiska hinteedaas waxaanu u soconaa halku dhig baa ahaa bariidadiiba waasid bal horta inaynu kala war helno oo deegaankan xaaladda dhabta ay ka jirtay abaareed caafimaad bal waxbarasho ay noo dambaysay waxa la salaadul waqtigeeda la tukadaaye maanta waxa inoogu daran waa abaarta wixii laga qaban karo iyo wixii laga qaban karo caafimaadka waayo waa noloshii labaduba ceelkii waanu soo marnay waa shaqaynayaa waxna waa ka dhiman yihiin sida odayaashu kaga warbixiyeen waxaanu halkan ka gudbin doonaa haddii aan la idmo iyadoo wasaaradaha markay heer gobol tahay uu xil saaran yahay gudoomiyaha gobolku oo chairman u yahay wixii ceelka baahi uu qabo in wax laga qabto annagu waxaan ahay wafti qaymi gobolka caasimadii gobolka Sool waftigaasi waxa uu ka kooban yahay anigoo barasaabkii gobolka taliyihii qaybta maayirkii degmada Laascaanood maayirkii gudoomiyihii degmada Kalabaydh xildhibaanadii
ka soo jeeday deegaankan xogayihii gobolka Sool cuqaal iyo waxgarad kale oo waayeela bahla saxaafadda dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta kadib xaaladaydu waxay ahayd ukuurgal xaaladda ka jirta tuulooyinka iyo degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Sool taasaan u soconnay anigu hadda waxaan joogaa gobolka muddo 3 bilooda 3 bilood muddo 2 bilooda waxaanu ku mashquulsanayn oo ku sii jeednay shirki iyo goori hadda unbaa aan u soo baxay inaan gobolkii iyo degmooyinkii aan indhahayga ku soo arko ragga kale la socdaa waa rag madaxa ahaadaan laakiin waa dad deegaanka iyo gobolka u dhashay aniga laakiin mas'uuliyad gaar ah oo 2 mas'uuliyadood bay saaran oo mid waa tii dawladda midna waxa weeyaan oo hadee madax u ahay gobolkii midna waxay tahay tii islaamnimo mid saddexaad baa jirto oo ah maadaama aan ka soo jeedin deegaanka inaan goob kasta tuulo iyo degmo aan istaago taasina waxay na tusaysaa in ama ay ku tusaysaa inaad u damqato dadkaaga iyo dadkaaga dadku waxay qabaan muhiimaddu waa in marka hore la soo arko dadkan waxay qabaan marka dambana wixii karaankee la heli karo aynu la soo gaarsiiyo ta golaha deegaanku waa dadkii laga soo doortay halkan waa dadkiini waxay u soconayaan inay arkaan xaaladda ay ku jirtaan si ay iyaguna bal wixii karaankooda waayo waxa la oranayaa waa lagu doortay maxaa lagu doortay maxaa ahayd maxaad ugu soo celisay horta ninka marka la doorto halkii loo doortay dhaqaale iskama yaalo iskama farfadhiyo horta taan ogaan wixii ay helaan ama cashuurta ay ka ururiyaan markay degmada soo dhaafto markaasay degmooyinka kale iyo tuulooyinka gaari karayaan inaad ogaataan inaan haddii qofku xildhibaan loo doorto ama uu maayir noqdo inaan khasnadu isaga buuxin waxna aanay meesha u sii oolin jeebkuusina uu iska buuxsamayo hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena